إثيوبيا تركي iyo Masar iyo waxaba nagama celinayaan annaga ayay nagu xiran tahay hadaan nahay Soomaali dhulka yaga inaan difaacano cadawga ka difaacano diin noo hambayn maayo oo dawladnimo nooma ogola oo jiritaankeena ma ogola oo dadyoga muslimiinta ah gaar ahaan Soomaali sida aragteen ayuu ula dhaqmaya wixii xilligii ay Tigreegu haysteen dhulka ay ka geysteen Soomaalida oo jaraa'im ah waa la og yahay wixii Muqdisho iyo koonfurta Soomaaliya ka geysteen waa la og yahay ragii geystay oo Janaal Gabre ugu horeeyay baa waxa dhacday Muqdisho inay liinta iyo cambaha ku cabaan si muxuu ahaa dakana la'aan ah taariikhda ma dhicin nin jaran dal dhan ku soo duulay ee laayay inuu sii joogo waa taariikh xumo waxyaabahaas oo dhan waxay daliil u tahay sida rajad moodid xoogaa aan quruxda badnayn ama Soomaalidu u fakarayaan si wanaagsan maaha waxa dalkan Soomaaliyeed gacan galiyay waxa ugu daran gacmo shisheeye markii laga tago iyo fargelinta taaso gudaha لأن واحد جرى واحد اللي يراهدو سيد اللي يرى مالك بالنبي أوشيء قابلية الاستعمار نكاسا وحو يري reer Jazaa'ir maxaa 135 loogu meystay Masar loogu meysay reer Jazaa'ir waxa ku badan qaabiliyatul isticmaarka waxyaabaha aqbala ayaa ku badan annaga qabiyaaladan draagiskan dilkan muxuu ahaa aragti dheerida aragti dhawida Soomaalida dhowr cisho ama dhowr maalmood ay qayliyaan kadibna iska aamusaan dadka ahlu xal wal aqdiga ahaa ood moodid waxna way dhinteen waxna dalka way ka qaxeen waxna waa gaboobeen waxna rajabeel baa ku dhacay inta badan dadkii ardaal daaqlayaal ah oo inkaar ku dhacday social media ka soo daahiray oo wixii Soomaali baabi dib u soo nooleeyay waxa soo dhan in laga hortago annagu cadawga dhexdayada ah iyo waxa khilaafaadka aan iska xalino Turkiya iyo Masar iyo Qatar iyo Sacuudiya waxana aan iska dhaafin riyadaas dalkayga aan difaacno adduunka duwalka masaalix mushtarak ay xaqiijiyaan reer qasa oo 30,000 dadka laga dilay ay ku dhowdahay wixii loo qaban waayay annagana loo qaban maayo marka waxaan rabaa inaan la hadlo ilaahina aan ku kalsoonaano cududeeda iyo dhaqaaleena aan isku biirsano dadka wax galka ah oo ummadda wax u galana ay ka hadlaan masiirka ummadda oo ay ka soo baxaan meelaha ay ku jiraan suuragal maaha xilliga laga muslaha inta ayaan ku soo koobay hadalkayga وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته